بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan yani ummadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa idaacadda iyo idinkaba waa idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka uu soo noqdo mashruuca ama nidaamka 4.5 4.5 waa horta waa arrin dulmi ah oo asal ahaan laga keenay maxalada xilligii 2000 dowladii cafta uu keenay waa nidaam uu keenay madaxweynihii Djibouti iyo madaxweynaha madaxweynaha Ethiopia Meles Zenawi. ha ahaato markaas waxaa laga dhigay halbeeg wax lagu cabiro iyadoo dulmi ay tahay ay khalad tahay dhaqan ahaan iyo diin ahaanba. diin ahaan marka aan tusaale u soo qaadano ninka oo 0.5 ka ah yani markuu barqaati dhaqanayo waa in laba nin oo 0.5 ah ayaa barqaati dhaqan karo. hal nin oo 0.5 ah macnaheedu waxa weeye barqaati ma dhaqan karo sababtoo waa nus waa ihaana. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay walaqad karamnaa bani aadama bani aadamka oo dhan ilaahay wuxuu leeyahay waa karaamadeeyey bini aadan yani ka fiicanna ma jiro ilaa bitaqwa. marka haddii laga keenay qof bini aadan ah ama dad bini aadan oo Allah abuuray oo mataqaana 0.5 ah ama nus lagu tilmaamo haddii ka mid waa arrintaas waa arrin dulmi ah waa arrin yani diinta yani islaamka ee muqaddaska xaniifka ah meel looga dhacayo iyo dhaqanka suuban ee mataqaana bini aadamka حتى حقوق الإنسان كما بيجا يقف بني آدم نص كواحد أمرنا أرنتاس وحيد أرن المكتب هرب الدين كتب يظهر يعني من المرسية الله قدرتي حلبيك يعني الدولة يعني أو بلاتفورم جراوند متقانا الليفل اللي بيصير بيصير البلانت له حيد لما يكون لما يتمن كي إن أن جدا بلغوا قليل حالة داس دلمية إلا غير بدو مهدة الحسن شيخ وفقانيه waxa loo igmaday oo ay u curatay waxay ahayd in wadanka ay ka bixiso xaaladaas dulmiga ah sida hal cod iyo hal qof in la gaarayo ahayd tani yani waa noo muuqata waa aragnaa dowladda xasan sheekh way ku fashilantay wuuna gaarsiin waayey wixii loo igmaday ahayd isagoo yani waqtigiisii ku dhammaayay inuu baraabiisar eriyo baraabiisar keeno baraabiisar eriyo baraabiisar keeno ayuu mataqaana xilligiisii waqtigiisii uu ku dhammaayay iyo inuu gabdho booyeesaa sacuudiga uu ka gado intaas waqtigiisu ku dhamaystay. marka aad baa yani nasiib daraa u tahay in yani maalintii ummadda Soomaaliyeed ay lahayd oo ahayd 2016 inuu gudbo hal cod iyo hal qof taasina yani waxa hagadaamiyey ka soconaysay dowlad oo loo igmaday inay ummadda gaarsiiso. marka waa ayaan daro Puntland keliya maahan yani cidda taageersan diidan 4.5 Puntland keliya maahan ummadda Soomaaliyeed oo dhan dibadda iyo gudaha joogeen way wada yihiin nidaamkaas faashilka ah nidaamkaas oo diinta ka soo horjeedo nidaamkaas oo dhaqanka wanaagsan ka soo horjeedo nidaamkaas oo ka soo horjeeda bini'aadanimada ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa diidan meel walba ay joogto. keliya waxaa ogol xasan sheekh iyo shariif xasan baa ogol iyo shariif xasan oo aan ognahay inuusan lahayn deegaan laga soo doorto deegaanka uu ku leeyahay koonfur galbeed waa Sarmaan waa tuulada Sarmaan. marka meel laga soo dooranayo oo deegaana ma laha shariif xasan. talabaad waxaa la diraa shariif xasan wuxuu halmaansan yahay in uu isaga naftigiisa yahay 0.5 marka ummadda Soomaaliyeed ee nidaamkaas ku qaadato wax isaga inuu noqonayo 0.5 mundida daabkeeda ayuu haystaa oo wax ugu goynayay taas dadkeed ay mataqaana ugu dhigan yahay 4.5 balse wuxuu hilmaansan yahay
إنه يصير نفتي شيء 0.5 marka yani nidaamka wax loo qaybsado waa gartay waxa uu mumkinayaa waxa ay mawdidii wax lagu qaybinayo qaabkeeda heystaa saas darteed ayuu mumkinayaa waa tahay deegaan meel uu ka soo galaya male dalka waxa uu ka dadkayahay waa sarmaan waa tahay marka doctor دكتور علي عبد الباب طبعا waxaynu ognahay nidaamka 4.5 dawladda markii ay golaatay beesha caalamka in ay taageertay Soomaaliya kaliya ma aha nidaamkaas mid laga hirgelinayo sidoo kale wadanka Ciraaqna waxa wararku ay sheegayeen nidaamka 4.5 xukuumadda la soo dhisayo lagu saleeyo markaas lama oran karo in arintan fargelin ay ku lug leedahay oo beesha caalamka naftirkeeda ama laftirkeeda ay ku cadaadinayso Soomaaliya in nidaamkan 4.5 wax loogu qaybiyo nidaamka horta beesha caalamka ama unidationka wax qasaba dadka ku leedahay ummadda Soomaaliyeed way ogaataa beesha caalamka inay khasbi karin beesha caalamka shaqadeeda waxa ay tahay ama mataqaana maankeedu uu yahay in ay ku shaqeyso rabitaanka dadka badan rabitaankooda laakiin siyaasad ahaan waxa ay taageertay go'aan xasan ayay taageereen balse iyaga ma khasbi karaan dadka mana u meelin karaan ummadda waxa ay rabto ayay yani ay qaadanayaan ma aha dadka khasbi karaan tana xaaladda Ciraaq 4.5 maal xaaladda Ciraaq diin baa lagu mataqaana madax baa lagu sameeyey shiica iyo sunni iyo kurdis ba loo qaybsaday balse Soomaaliya ma kala lahan uma saaqla ma lahan diin qaybsamaysa Soomaaliya ma taalo ummad qaybsamaysana ma taalo laakiin Ciraaq xaalkeeda waa xaal gooniya waa kurdis iyo carab inta kurdis iyo shiica iyo sunni saasa loo qeybiyo waa tahay arrin kale waxaa jira dastuurka looga hadlayo waxa adamaasto waa rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego qaramada midoobay inaysan xoog ku lahayn dadka ay iyada tahay tan ka shaqeynayso ama mataqaana qaadada mar walba habitaanka dadka haddii ay qaadato ama ay taageerto dowladda dadkiisa haddii laga hirgelinayo dadkiiyaa ka dhaadhicinayo dadkiiyaa ogoleysiinayo it's not easy mataqaana dowladda haacnay ay dhahaan dadka ay ka go'do yaa gaarsiinayo yaa u sheegayo marka waxa weeye yadayso daftigeeda yani door waa ku leedahay gacmeen bay ku leedahay balse la wax soconayo ma aha arrintaas waa tahay dhinac kale waxaa jira in dastuurka kumeelgaarka ah qodobo laga bedelayo oo dawladda federaalka arrintaas daahfur ay ka sameysay oo golaha shacabka la horgeeyay maamul goboleedyadana dabcan iyana door wanaagsan ay ku leeyihiin marka wax ka bedelkan dastuurka oo xitaa warbaahinta loo adeegsanayo oo meel walba la geynayo gaar ahaan Soomaaliya bal ka waran iyo waxa ka suuragali kara arrimahaas wuxuu dastuur noqonayaa marka afti loo qaado dastuur wadan constitutionkiisa wuxuu yani kaamil noqonaa oo lagu dhaqmi karaa waa marka ay ummadda u adeyso oo ummadda afti laga qaado ay ogolaato ama ay diido yani markaas wada dastuurka dastuur noqon kara dastuur aan loo odeynin aan afti laga qaadin hadda waa dadba waaye dad wax iska hortay noqonayaan markaas dastuur lama dhihi karo dastuur uu noqon karaa marka ummad ila dastuurka inaysa wanaagsan heshiiska waxa uu u dhexeeya waa ummaddaasi oo heshiiskaas dhigatay markii ay wada ogolaato ayaa lagu dhaqmi karaa iyadoon ummaddii wada ogolaanin ma noqon karo dastuur mana lagu dhaqmi karo marka haddii dawladdu ay qaadatay go'aan dastuurka oo maamulada gobolada ka jira iyaga shacabkooda ay matalaan oo dhinac kale dawladda federaalkeena wakiil ay ka tahay guud ahaan Soomaalida marka arrimahaas maxaa diidi karaya in qodobada dastuurka wax ka bedel lagu sameeyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayay waxay u tahay in yani ka dhiibtaan aragtidooda iyo fikirkooda iyo ra'yigooda qof matali kara male dastuurna ma ahan dad baa matalaya dad baa yani soo xeeriyey wax la qaadan karana ma ahan wax suurtagalana
in isaga noqdo dastuurka waa masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed nin walba fiiro ku leeyahay iyo nin oo mataqaana u tali kara ma jiro marka maxaa tala ahaan aad ku jeedin lahayd maadaama haatan arrinta la gudagalay oo daafur dhawaan lagu sameeyay gobolada dalkana la geynayo si markaa loo soo bandhigo adeero arrinta waa ka hadalnay maalinta haddana waa ka hadlaynaa haddii alla idmo oo waxaan la kuunsanahay beesha caalamka ayaan mataqaana la balansannahay mara hadda annaga waxaan soo jeedinaynaa dadka in yacni loo dhiibo dowlad mataqaana stakeholder ah oo kumeel gaar ay lagu celiyo dalka 2 sannadood oo kumeel gaar dalka lagu celiyo si loo gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed nidaam doorasho cod iyo qof in la gaarsiiyo waxaan caalamka u jeedinay oo aan u faahfaahinay oo aan u bayaaninay in dowlad stakeholder ay la suubo oo kumeel gaar ah taasana naga ilaa mataqaana beesha ugu dambaysa aan la tagno taas mana oo la kala dastuur دستور وعلى لها هشيش وبد مال وذا الدجل نظام يكون شيء أيها لها الدستور أو لو وذا عذري تقولك واحد يدق على صوتين بس أنا يعني أشير إلى إن بالجار الله بصر إن دخل الوعي شيء يعني لو أو بلاسيسة والمال والفوت عشان يعني عالم كتصيلا عن أصل بالدجلي أنا بضع